Hi guys, assalamu alaikum. Setting kusoo dhawaada video cusub oo channelkeena Queen Hawa. Maanta waxaan hayaa video cusub ay ka codsateen dhowr mar ay weydiiseen please ka soo hadal see ku baratay Englishka. English soo barata wadanka joogo oo wali aan ka bixin. So okay guys, maanta videogaas idin sameynaya oo sida aan ku bartay Englishka aan wadanka joogo oo wali aan ka bixin. dad badan horta weydiinayay in meeshaan ka imaado ama wadanka banaankiisa ka imaado maya wadanka banaankiisa kama imaanin Soomaaliya ku noolahay walina wadanka ma ka bixin marka anyway qaabka Englishka aan ku bartay aydan kaga sheekeynaya haduu ilaa idmo anyway aan videogan bilaaban horta ani waxaan bilaabay inaan Ingiriiska inaan ku hadla jecleystay xilli fog aad u fog iskuul aan dhiganay markaas oo dugsiga hoose dhiganay laakiin waxaan joogaa magaalada markaas waxaa jireen dad cadaan ah ajaanib ah imaan jireen wadanka markan ugu imaan jireen oo ilmaha caabin jiray oo dadka masaakiinta ay caabin jiray imaan jiray okay so anyway English ku hadli jireen so aniga markaas English waan la bari jiray bas laakiin waan ka taqaan English dugsiga dhexe it's like no xalawa ABCD markii lagu dhameey ka bacdina waxa lagu baraa xayawaanaadka magacyadooda kalarada magacyadooda nambarada iyo waxaas so waxa jeclaa inaan Englishka inaan ku hadlo abarto but anyway dugsiga dhexe markaa kasto aan muddo dhiganayo adiga dugsiga hoose aan kasoo gudbo dugsiga dhexe ay imaaday walaasha caasha adqani waxay aydan aad u jeclad Ingiriiska inay barato markaas ayadana laakiin waxay dhiganaysay school private oo magaalada markay ka dhiganaysay bas waxaan dhahay iskuulkina ku raacaan rabaan dhaanay iskuulka private kan dhigana aan kula dhigana bas way soo waday iskuulkii keentay so iskuulkii aan dhahay caasha waraba sidii iskuulka uu geysay waxa ay bilaabay Ingiriiska markaas macalinkeyga halkan ka salaamaad teacher Abubakar Cabdi Jeylaani Abba so bas iskuulkiisa soo bilaabay private anyway imtixaan laga qaaday number 1 kood hore markii la geeyay imtixaan laga qaaday si in hadii bilow hoos laga soo bilaabay hadii meel dhaxal laga bilaabay bas imtixaanka laga qaaday ku guuleystay meel dhaxal laga bilaabay and jumlooyin qaar isku xir leedahay yani sida waxyaabo qaar isku xir leedahay isma xasuusi karo walaa mareed aad u fog kadib Ingiriiska iskuulkaas aan ka yara dhigan jiray laakiin markaas waxaan ka cabsan jiray wada sheekaysiga waxyaabahaas oo kale waa ka cabsan jiray ma sameyn jirin hadii la kiciyana dadka lugaha uma daali jiray waqtiga aan ku dhamaanay so ma sameyn jirin marka laakiin casharada toos oo qaadan jiray laakiin waxa aad u dhageysan jiray gabdhaha iyo wiilasha oo markaas wada sheekaysiga sameynay dhagaha u taagi jiray yaa ku soo har casharada markaas iga sareeyeen grammarka iyo ayadana sidoo kale waa akhrisan jiray waan qoran jiray waa akhrin jiray يعني المهم مهمة هذا الكيك وحياي حوجان ساراي أنا ولي level أنا جارين بان ما حنسكت تيجي أنا كده بحرت مكان كان كدب مقالة مركب قصة تجاي مقدش عين ماذا مقدش مكان ماذا كدب لو سكول برايفت أنا تجاي absolutely قنعين واي كدب وحن بلعبي إن أن فرصة فيلمانتا أو إنجليزك عربي كترجمان هو subtitle كيس عربي هاي لكن إنجليز لو واحد لا الشوية ده quoteska like mahmayaasha meelaha hadalada xigmadaha leh ama mahmayaasha oo English ahaan ku qoran waxyaabahaas aas ka daba dhigtay almuhim waxaan isku day jiray inaan ani naftirkeyga English aan qoro ama aan jumlad isku xiri karo ama waxyaabahaas oo kale almuhim marxaladda saas u yara kobacday oo marka dambe Ingiriiska uu si fiicnaanay lixad ma marka dambe aan soo gaaray in aan jumlad aan dhisi karo oo wax isku day ani asxaabta Instagram iga xiran badan iyo Facebook way yaqaaneen waxaan dhisaa quotes ama waxaan alfa hadalla xikmad mahmaahna ma oo maxaa la karaa waxaas camal Soomaali mahmaah ma oo laano mahmaah waxa la dhahaa waxyaabaha
mahmaha waxaa la dhahaa mahmaha ma noqon kartaa mawi so quotes ama okay guys kamerada damiila ana waxay la noqotay inuu microphone-ka dhan off yahay oo isku naxaba bas almuhim aniga xikmadaha salifaa oo aan sameeyaa hadaba xikmado badan oo aniga aan alifay way jiraan soo waxa bilaabay inaan isku dayo inaan xikmadaha carabiga badan ku sameyn jiray in English ku sameeyo waxyaabahaas bilaabay kadib waxaan xoog saarayay oo bilaabay inaan xoog saaro fiidiyoyada showiyada oo carabiga lagu soo tarjumay laakiin okay hadii luqad kale aad taqaanid way fiican tahay yani asoo subtitle ahaan qaadanaysa aniga carabiga subtitle ahaan aha showyadan fiirsanay laakiin English ku hadlaayaan soo waxaan fahmi karaa waxay ku hadlooyin maadaama carabiga aan aadna u fahmaayo waan akhri karaa waan qori karaa bas isku dayna ku hadla marmarka qaar la isku dayaa soo qaasatan marka leelo isla joogno saaxiibtay inta qaano leela because of carabiga inta badan ku hadasha so kadib maxaa dhacday almuhim anoo ingiriiskiisa yahay oo saas ku sii socdo bas laakiin halka ciladan qaba ingiriiska wuxuu ahaa waa akhrin karaa waa qori karaa bas kalsoon daro waxa qaba ma ku hadli kari hatta hada wixii aqaano oo dhihi karo ma ku hadli kari so shakada saas waheed ka bacdi waxaas baranay xajigayga Anwar oo ingiriis ku hadlo kadib waxaan ku qasbanaaday inaan ku hadlo wax soo saa Anwar koodi markaas baranay laba bari text message bas ku wada hadlaynay kadib inuu soo wacay ما يعني because of English بهالكري أنا وقهاد الكتاب ده هديبه وقرال كاسان في عينها وقهاد الكتاب بس لكن أنا قرال كمرة كقارب حيابها وريه أن أقول يقول عشوا كل مركل إيسو قرب حي عابين جري Google Translate استعمال هدي يقف إيسو قرآن فهم وعي أما وحنا أنا ربنا وجوه وقت كاتو كلته Google Translate تجي حالة هاي Translate English to Somali كبعدنا wixii lagu soo qoray English ahaan u gelinaysaa oo koobiya soo dhahay hadalkii qofka uu soo qoray ka bacd Soomaali ahaan uu soo tarjumaa hadii sidoo kale ta arabtid ina Soomaali ahaan wixii aad ku dhahdidna qofka ina English ahaan ugu jawaabtid oo laakiin Soomaaliga bas haysid maskaxda ku soo Ingiriiska aan ahayn meesha ku qoraysan soo wax yar aan qoraalka intaas ay gacaabinayeen almuhim kadib waa ku dhiiraday abar soo wacay ka bacd waa la hadlay isku day laakiin like هذا ودي بدند بس لكن أسيبه يفهمه أوكي لحد ما إنه يفهم إيش كده يجري معناه ترتيب ويلقيسنا أوكي إنجليزي كصعب حير وحير كصحي كذب كذب وعلاقة بصدق أنا كحشرنا بالعواب وعادي مركا إنجليزي وسكول هذا وحيا بقى قرر فهمه واحد يجري سوق دع جوجل أجنا أوكي ساس ما كبدها أوكي أنا في Soomaali هنا أقول لها ساس كبدها so إنجليزي باش wuxuu ka bilaabday inuu noqdo perfect oo sii noqdo oo qatar sii noqdo yani laakiin Ingiriiska aan sii barto oo Ingiriiska aan sii barto meesha ka bilaabday marka aan Anwar akulanay kadib ka bacdina Anwar hada Ingiriiska baray anyway wadadaas dheer waa soo qaaday laakiin bil akhiir Anwar la kulmay saasan ku bartay so maxay idin siinayaa talooyin yar aad ku bari kartid luqadda jeceshahay okay قسم ما إنجليزي بس لقط والبجع شاء أكبر كرتيت أوكي أنا حام أنا من سنة هاي أنا هذا لغة عربية واقعنا لغة إنجليزي كنا واقعنا لكن لبضوا بين مشي جاي سكول أو أتقطي أو أتغي أو قصص برت مجرته لبضوا بقى سن شو رفنا هاي أم بمبرتي فهمتين من جاء وحاخر 60 يعني وحاجران فيري وحاجران بيجج oo soo dhiga bas qoraalo ama quotes ama xikmad ama waxa la wixii la dhaho suq bal horta ba quotes kaas mahmiya intaan gelina suq okay Google Translate balgelina okay translate English mujadino taas markaan dhaho كبعد انت هذا محن قرا quote كبعدنا اوكي حيقشو
quote xigasho okay laakiin xigasho maxaa laga wadaa quote يعني هذا الحكمديسن أما هذا الأديك أو whatever يعني بيجي مركو حاجرو أو صادقه quote صادقه أما بحكمة هذا لا حكمة لا صادقه أو لقد أدي إنجليش ك حتى إنجليش عندك لا سامعها لقد إنجليش كسو قران سو آخر سنة كرتا بيج كاسجلي كرتا سواح والبو waxay soo dhigayaan saacad soo dhigan swax walba ma saacad walba waxay soo dhigayaan oo cusub saacad walba waxay soo dhigan akhrisanay waa fahmi waxaan fahmin waa qaaday Google Translate geene waa soo tarjumanay adle waa soo bisleesanaysa bahasha ma fahmtay okay number 1 waxa waa ina aad la socotid beejajka luqadda aad rabto ku hadlo macnaha ama carabi waa la socon jiray xikmada bas yahay ilaa la socdaa yes عربي وضع هذا له حكمة له يسوقلنايان ما فهمتي إنجليش كان سدا كلته كان هذا لا سدا سو كلته أو إنجليش أهان يسوقلنايان لبعضنا عمر والبو آخر سنة مر والبو آخر سنة بحكاية سعيدة ماشاس إن آخرس كا وإنجليش كوبطو أوكي تلاذ لبعض إذن سينا يحكين جوجل ترانسليت أنت إذا كوكو سو قرايا بحد لقد والبو بتقدر تجيلين كرتا جوجل ترانسليت كأتكيلي جوجل كاga caadiga marka furtid kadib waxa ku qoraysaa translate English to Somali or Somali to English marka ku qorto waxa ku soo baxaya laba meel oo space laba meel oo faaruq ah kor waxa ku qoran English hoos waxa ku qoran Somali labadaas meel marka qaybta kore waxa gelinaysaa Englishka qaybta hoosena Somaliga ku soo tarjuma ina fahanteen rajayna okay tala labaad waay tala saddexaad practice ku celceli inaa isku daydo inaa ku hadashid luqadii aad ku noqotid oo ku hadashid xataa aad isku lahado sometimes like meel fariiso dhinacan qofka kale ku soo horjeedo xaabo kale ta ka tarjumanaa ma fahamtay adiga macnaha hadaan la cilana naciim lagu dhaho naciima kale ta horta adag soo jeedo maxamed lagu dhaho maxamed kale ma fahamtay was la sheekaysanayno hi guys how you doing I'm good alhamdulillah oh what about you I'm good too okay what is going on da فهمتين اسكو ببركرتين اني انجليزي كنت انا برنا واسلاد لاي بس لكن هذا ما دام انت قف لها هلا هلا انجليزي كلها لاي سو مو بان anymore الناس لا سي هلا سو تاس نمبر 3 waa practice نمبر 4 isku day in aad qorto in aad jumlad aad isku xirto number 5 in aan ka xishoonin luqadda ina ku hadashid luqad walba doonta ha ahaato hadii aad rabtid ina bartid oo ina ku hadashidna ka xishoonaysid ma ku suurtagelayso waxaysan kugu suurtagelayn waxay tahay yani luqadda daan la practice gareynaynin oo lagu hadlaynin practical lahayn muumalina inay ku suurtagelayso laana ingiriiska wuxuu better noqday markii oo bala noqday markii aan war bilaabay inaan kula hadlo okay so yes why intaastay gurigeena waxa ahaa ingiriis qofka oo hadan waxa ahay ad macnaa ingiriiskeyga ugu fiican perfect uga awalkiina sambu ahaa so yeah like practical muhiim waa oo jeedisaba so aniga hadda macnaa waxa ingiriiskeyga beel ka sii dhigay practical waa 24 saacad aan war kula hadlaa mar walba ku hadalnaa ingiriiska leen kula hadlaa so yeah that's why so okay video gan yar waxaan kugu soo duubeysaa aan idin kaga sheekeeyay qisadeedii ahayd English qaabka aan ku bartay insha Allah inuu idin cajibiyo rajeynaya hadii idin cajibiyo please video like saara share the videodeena and comment inoo soo qoro wixii ra'yigiina please subscribe saara channelkeena la wadaaga asxaabtiina وأنا فيديو كلاتي أنا بنوت قبنا إن شاء الله. Bye guys.